السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا الصومالي هيلث لايف ستايل وان channel ka baa kala xiriiraan wixii caafimaadka qoseeya. Shan sababood ayaa noqon kara sababaha ugu muhiimsan inuu ilmaha yari hadalka aanu horu soo saarin oo hadalku noqdo waxa ugu adag ee xidho sameeyo ama uu noqdo ilma aamusan. Koow ilmaha yar in xidhay labada sano ee ugu horeeyaba uu xidhay fiidiyo xidhay joogta u daawado kartoon daawado YouTube-ka loo shido TV-ga loo shido in badan uu hor fadhiyo waxana waa sababta koobaad ee ilmahaas inuu noqdo ilmaan hadlayn oo Soomaaliga aan baran. Number 2 ilmaha yar hadii aan ciidaba la sheekaysan oo hooyadiina ka mashquulsan tahay ama abiina uu ka maqan yahay waxay noqonaysaa sabab xidhiidhna muhiim ah oo keeni karta in ilmahaas aanu hadlin. Number 3 hadii ilmahaas dhigaha wax ka qabo oo si fiican dhigaha wax uga maqlayn wax weey iyaduna sabab weyn oo xoog badan oo keeni karta in ilmahaas hadalka baran. Number 4 wax weeye hadii ilmahu isagoo xanuunsanaya la soo mido oo garansaaye talaal iyo wax loo sameeyo oo dibadana xumadina si qabato waxay noqonaysaa in ilmahaas xanuuno kale oo uu ku jiro hadalku inaanu ka soo bixin oo garan soo saaro. Number 5 oo ugu dambaysa waxa weeye ilmaha yari hadii luqado fara badan hal mar garansa lagu sii weedaayo waxa keenaysa inaan hadalka baran oo garansa tan ka baqo taana ka baqo. ilmaha yar waqtiga uu garansa 3 sano hore ugu jiro waxay ku tahay inaad mas'uuliyadda aad u qaado aad waalid tahay oo aad ilaaliso in luqadiisu ay noqoto kaleer.